بسم الله الرحمن الرحيم sida aad ka maqasheen shalayta hay'adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka loo yaqaan coronavirus waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dawladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dawladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameeyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu la tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee hawshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dawladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dawladdu waxay kala shaqeynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horeysay oo u qoondeyno oo lagu la tacaali doono cudurkan lacagtaas waxa uu qaban doonaa qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan waxa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saameynta cudurkan uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortagi lahayn ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda aqoonsidooda iyo diintooda inaan duceysano ilaahay ku xirnaano ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa waan idin mahad celinayaa kulligiin wasalaam